dabcan waxaan marka ugu horeysa u mahad celinayaa shacabka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha reer Djibouti madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele waa oday Soomaaliyeed waa oday dadka Soomaaliyeed meel kasta degaan sharaf iyo karaamo ku dhaxleh taariikhna ku leh waxaan ugu muhiimsanayn inaan soo booqano soo siyaarano la tashano guud ahaan Djibouti iyo horumarka ay gaartay aan u kurgalno kana codsano in wixii nala qaban karo ay Soomaaliya la qabtaan marxalad kasta u baahan yihiin waxaan dib u milicsanay 20 guuradii ka soo wareegtay shirkii Carta oo ah waxa maanta Soomaaliya saldhigga u ah horumarka dawladeed ee gaartay waxaan wali ka rajaynaynaa xasuusinaynaa kaalintiisii wali inaysan dhammaan loo baahan yahay marka kulankeenu wuxuu u badnaa salaan xogwaraysi iyo inaan Djibouti horumarka ay gaartay aan soo booqano waxaan uga mahad celinayaa safiirka iyo wasiirka aan martida u ahayn oo runtii kaalin fiican maanta nala qaatay horumarka dhinaca dhaqaalaha ay gaareen inaan wax badan uga dayan doono wax badan oo isweydaarsan doono wax badan iska kaashan doono hadii ilaahay